wiil dhalinyaro ah oo ka dhashay qoys wanaagsan isla markaasna eebba ku manaystay akhlaaq wanaagsan wuxuuna wax ka bartaa mid ka mid ah jaamacadaha magaalada. laakiin dhibta haysta wiilka ayaa ah inay dhaafto ama ay ka tagto salaada subax inta badan isla markaasna ay adag tahay inuu jamaca ku tukado salaada subax. waana arrintii murugo gelisay waalidkii, khaasatan hooyadii oo maamulka mid ka mid ah iskuulada dugsiyada hoose. maalmaha ka mid ah iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa la aqimay salaada subax. hooyadii waxay filaysay inuu soo kaco wiilkeeda oo tukan doono salaada subax, laakiin ma aysan dhicin sidii ay filaysay oo wiilkeedii hurdadii kama uusan baraarugin. mar labaad ayay damcday inay kiciso si uu u tukado, laakiin ma uusan baraarugin. markii la gaaray 7 subaxnimo hooyadii waa iska tagtay waxayna aaday shaqadeedii, mana aysan kicin jaamacaddii maadaama uu imtixaan galayay maalintaas saacaddu markay tahay 9 subaxnimo. wiilkii wuxuu baraarugay saacaddu markay ahayd 10 barqanimo, mana uusan aadin jaamacaddii maadaama la dhaafay waqtigii la qorsheeyay in imtixaanka la galo. markay soo noqotay hooyadii ayuu weydiiyey hooyadii imtixaanku ay dhaafay maxaad ii kicin weyday saaka. hooyadii waxay u jawaabtay iyadoo wajigeedu ka muuqda cara fara badan, waxaan arkay inaad ku fashilmatay imtixaankii aakhiro, sidaas darteed macno badan ii samaymayso inaad ku guulaysato imtixaan adduun. ma waana wiilkaygiioo marar badan kuu sheegin xadiiskii rasuulkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam ee ahaa ragcataa fajr khayru min addunya wamaa fiiha. tukashada xilliga salaada subax 2 ragcadood waxay ka khayr badan tahay adduunka iyo waxa dhex yaala. waxaase ka baqayaa wiilkaygiiyo inay dhib ku horseedo ka tegista salaada subax. goortuu arkay wiilkii carada ka muuqata hooyadii wejigeeda, wuxuu gudagalay inuu maslaxo hooyadii niyadana uu dejiyo. wuxuuna weydiiyey hooyadii maxaa hooyo maanta afurka noo samaynaysaa. waxayna hooyadii ugu jawaabtay si cara ka muuqato, waxaan karin doonaa afurka maanta sun ee ka hor dhaqaaq wejigayga. wiilkii isaguna wuxuu ugu jawaabay, anugu hooyo waa xanaaqsanahay, maantana idan lama afuri doono. laakiin hooyadii waxay ugu jawaabtay, cidda xanaaqsan adiga maaha ee waa aniga. kadib wiilkii waa u dhoola cadeeyey, wuxuuna raali geliyey hooyadii, wuxuuna ku yiri bixi maayo maanta ilaa adigu aniga iga raali ah ma ahane. dabadeed hooyadii waa ay faraxday iyadoo tusay wiilkeedii inay raali ka tahay. wiilkii waa baxay si uu hooyadii ugu soo gaday hadiyad si ay hooyadii maslaxa ugu noqoto. maxaa yeelay wuxuu ogyahay inay hooyadii tahay qof qalbi wanaagsan. halka hooyadii ay ku mashquulsanayd inay wiilkeeda u duceyso isla markaasna alla uga barido inuu sharka makhluuqa dhammaan dhinac ka marsiiyo wiilkeeda. dabadeedna waxay guda gashay inay diyaariso cuntadii uu jeclaa wiilkeedii. 2 saac kadib markuu soo dhawaaday waqtiga afurka, waxay miiska ku diyaarisay dhammaan alaabtii afurka, waxayna gabadheedii ka dalbatay inay wacdo wiilkeedii si ay xilli hore u afuraan. laakiin markay wacday telefoonkii wiilka wuxuu ahaa telefoonku mid xiran. markii la gaaray xilligii aadaanka, qoyskii waxaa soo faasaaray walwal, khaasatan hooyadii. waxay si kaliya TV ugu arkeen war degdega oo sheegaya in koox dhalinyaro shir baabuur ku galeen wadada dhexdeeda. dabadeed hooyadii aad ayay u walwashay wiilkeedii, waxayna eebbe ka bariday inuusan wiilkeedii ka dhigin cidda shilka gashay. waxay marar badan waceen oo ku celceliyeen telefoonka wiilkeedii, laakiin muddo saacad ah cidina maysan jawaabin. waxaa si kaliya loo soo qaraacay albaabka gurigoodii isagoo wiilkeedii farxad darteed waxay hooyadii xabadka gelisay wiilkeedii, wuxuuna guddoonsiiyey hadiyadii uu siday. wuxuuna u sheegay inuu ka mid ahaa dhalinyaradii shilka gashay maanta, laakiin uu eebbe ka badbaadiyey maadaama iyadu u duceysay. wuxuuna ballan ku qaaday inuu salaada masjid leela uga tegi doonin. haddaba walaal cid og ma jirto goorta aynu dhimanano, sidaas darteed walaalayaan waa inaynu ku dadaalnaa cibaadada eebbe si ay geeridu noogu timaado inagoo Allah subxaanahu wa tacaala u hoggaansan. haddaba haddii walaal aad barnaamijkan ka heshay, fadlan channelka subscribe noo saar, muuqaalkeena la like saar si ay dad badan u daawadaan. mahadsanid.